وسلامتنا asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha badan leh waa markale channelkeena Oncod Books Art Somali waxaan maanta casharkeena ku qaadan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo qaabkan idiga soo muuqan doonta shaashada horteeda marka bal ila fiiriyo qaabku uu eegyahay marka waxa wada riyaan ka badan yaan ogahay qaar badan baa xiiso qaba casharkeena bartaan sida qaabka loo sameynayo marka casharkeena hore aan ka gudubno السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الشيخ ما بدنا كسر وده channel كيني Oncod Books Art Somali وحمان تهدو لهي كديو عشر كان كو قادن دونا قابك هورو سو aragteenba ayaan sawir kale hagaajin doonaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa caafimaad qabad fiican ku daawanaysa magarad dad jiranta in Ilaahay xanuunka ka dulqaado oo caafimaad kugu bedelo marka insha Allah taala waxaan bilaabnaa casharkeena in galno barnaamijkeena Books Art kan isticmaalna okay markuu saan ugu soo baxo ayaa waxaan taabanaa falaadha hoose aan taabanana markaan taabano ayaa waxaan bilaabaynaa inaan soo qaadano sawirkan markaan soo qaadano ayaa xagga midig anaga u kacayna ayaa waxaan xulanaynaa add photo kadib waxaan bilaabaynaa inaan soo qaadno sawirka meesha badda ah inaan soo qaadano waa kana add baleenahay kadib marka saa ugu soo darno ayaa waxaan bilaabaynaa inaan ku ballaarino xagga sirasa aan banayno kasaan raahno ayaa waxaan taabanaa calaamadda iskiisada xagga sare ku taala ayaan taabanaa kadib xagga waxaan ka dooranaa shape meesha ku qoran tahay markaan ka doorno waxaan bilaabanaa inaan jarno intaas sare oo aan biyaha kaliya ku soo reebno sanad ugu balaarinaa kadib markaan saan raahno ayaa waxaan leenahay sax baan leenahay sax markaan raahno kadib mar labaad waxaan leenahay add photo oranayna add photo markaan waxaan soo qaadanaynaa sawirka baan soo qaadanaynaa oo biyaha ah kadib saan durugsanayna xagga hoose soo dhigana sawirkana saan marka xagga hoose soo dhigno ayaa waxaan leenahay sax ma oranayna kadib waxaan oranaa mar labaad add photo haddana ayaan leenahay waxaan soo qaadanaynaa sawirkan waxaan soo qaadanaynaa kadib markuu saa yahay ayaa waxaan sameynaynaa yaro janjeerino aan dhinacna u dhigno annagoo dhigana xagga hoose kadib markaan saan raacno ayaa waxaan sameynaynaa qiyaasta baan yareynaynaa tusaale waxaan ka dhiganaynaa ilaa 50 camal oo kale ayaan ka dhiganaynaa kadib waxaan taabanaa calaamadda iskiisadan taabanaynaa kadib waxaan taabanaynaa baabisada mar labaad waxaan bilaabanaa inaan masaxno qaybta biyaha ay la socota si uu noqdo wax hoos ku jira intaas camal oo kale ay u noqoto ayaan sameeynaa marka waan tirtiraynaa laakiin waxaa isku daydaa inaad gacantaada khafiif noqoto si aan sawirka kaaga xumaan gacantaada una qiyaas lahaataa
ujeedaan la raacina. Sorry. Okay. saan markuu noo soo baxo calaamadda saxdan taabanaynaa. kadib waxaan bilaabaynaa inaan kordhino meeshaan gaabinay oo 100 ku celino. ujeedaan saas u soo baxay. marka labaad baan sax taabanaynaa. sorry sax. kadib haddana waan taabanaynaa add photo. waxaan bilaabaynaa inaan soo qaadano sawirkii aan ku sameyn lahayn ayaan soo qaadanaynaa. sawirka markaan soo qaadano ayaan add baan leenahay. kadib waxaan bilaabaynaa xagga midiga noo kacayna waxaan taabanaynaa qaybta maqaska. kadib waxaan bilaabaynaa inaan xariiqno si aan u jarno sawirka. aan xariiqaynaa oo ku wareejinaynaa. kadib falaadhaan leenahay. markaan sawirka saa u hagaajinay aan jarnay waxaan leenahay sax baan taabanaynaa. kadib waxaan bilaabaynaa sawirka inaan weyneyno. waan ka dhigno qof ku fadhiya camal oo kale ayaan ka dhigaynaa. waxaan sameynaynaa inaan gaabino larkan ka gaabinayna xoogaa sidii kii hore kale. kadib markaan saan raacno calaamadda iskiisadaan taabanaynaa. kadib waxaan bilaabaynaa inaan jarno inta biyaha ah ee ku jiro adigiisu ayaan bilaabaynaa inaan jarno. kadib markaan saa u jarnay waxaan leenahay sax baan leenahay. kadib waxaan bilaabnaa haddana la kadib ku celino meeshuu maraayay. sax baan leenahay. kadib saa u jeedaan intaan jarnay wax isbedela kuma hayno. marka waxaan u kacaynaa qaybta brushkan tegaynaa ee dharow ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa. kadib dharow baan leenahay. sameynaynaa shaashadan xoog saa u haynaynaa. kadib waxaa noo soo baxaysa qalabkan baa noo soo baxaya. marka waxaan bilaabaynaa inaan ka doorano kaladh biyahan hoose ah ku dhex jira. marka saa u dooratid waxaan taabanaa qaybta brushkan taabanaynaa. kadib waxaan ka dhiganaa qiyaastii waxaan ka dhiganaa 60 baan ka dhiganaa. qaybta kale aan taabanayna iyada xagga sare ku taala iyadan waxaan ka dhiganaa 50 ayaan ka dhiganaa. kadib waxaan bilaabanaa inaan intaa hoose aan marno kalarkii iminka aan la soo degnay inaan marino ayaan bilaabanaa. waxaa la doonayaa oo kaliya inaan xariiqda biyaha xagga joogan inay dhaafin ayaa la doonayaa. marka intaas oo kaliya argaa doon inaad ka ilaalisid.
dib markaan saartaan dhameynay ayaa waxaan taabananaa saddex halka bas dul saaran ayaan taabananaa. kadib waxaan sameynaa xaggan inaan gaabino aan ka dhigno adigu ilaa 40 ama 45. Anamka 40 baan ka dhigayaa. kadib soo jeedaan amka adig wuxuu muuqdaa iyo baargin looxii waxay muuqdaan in inta foorta ay ku dhex jirto biyaha hoostiisa oo kale. marka sax baan leenahay. waxaan leenahay add photo leenahay. waxaan soo qaadanaa laba sawir ee kalluunka aan soo qaadanaa. marka kuwan baan soo qaadanaa xaggan bidix baan xigsiinayna anaga xogo yareynayna. kadib xagga midig baan u kacaynaa blend meesha ku taabanayna. waxaan ka xulanaa qaybta saddexaad baan ka xulanaa display baan ka xulanaa saasan u daynaa ka kala hadan u wareegnaa talaabada talan qaadno kala waaye waan yareynaa sawirkana. kadib xagga midig blend display soo jeedaan. kadib sax baan leenahay. haddana mar kale waxaan tagaynaa add photo leenahay. waxaan soo qaadanaynaa sawirka shimbirtan soo qaadanaynaa. kadib xagga bidix baan xigsiinaynaa soo jeedaan. haddaad jeceshayna waa kala rogi kartaa xagga midig bas ugu soo rogi kartaa. kadib markaan soo dhigno waxaan leenahay sax. waxaan sameynaa qaybta ay ku qoran tahay effectska oo kan ah. kadib anaga xagga hoose uga raadinaynaa fx meesha ku qoran tahay ayaa xagga sare waxaan ka raadinaynaa meesha ku qoran tahay retro anaga xagga midig u kacayna. waatana retro aan ku dhufanaynaa saana nagu soo baxaya. markaa mar labaad baan taabanaynaa. kadib qiyaastii si roog ah waxaan ka dhiganaynaa 20 ayaan ka dhiganaa. xaggan hoose ayaa waxaan ka sii raadinaynaa meesha ku qoran tahay sorry meesha ku qoran tahay hard light ayaan ka dooranaa. kadib sax baan leenahay. mar labaad calaamadda falaadha sare save baan leenahay. gallery done. asaanu ku dhayahay casharkeenu. fadlan haddii ku cajaabiyo muuqaalkan like saar videoga. haddaad ku cusub tahayna channelka fadlan subscribe dheh gambalelkana furo si uu kusoo gaaro cashar cusub oo kasta aan soo dhigno. markaa saas kaga tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.